بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسك ولا لدو قوم دايان وسيدي لو بدبادي كرا دلينتين وسؤال أنا نقول جوابه هينين marka la eego dhalinyaradeena Yurub joogta nisbada ama inta aynu ka nahay suuqa mukhadaraadka ama xabsiyada ama xataa al-musixaat al-aqliya meelahan dadka buufsi ku dhaco la geeyo aad bay tiradeen u badantay wadan walba dad badan baa xanuunsanaya maskax ahaan dad badan baa xabsiyada ku jira dad badan oo dhalinyaro ah gaangiska iyo mukhadaraadka raacay waana tiro badan yihiin saashay isweydiinta la waxay tahay saynu u badbaadin karaynaa hal lahum min mustaqbal wax mustaqbala oo aynu diyaarin karnaa ma jiraan mise waxaynu nahay dad dabar go'aya oo maalinba ini khadka ay ka sii baxayso waa su'aal aan oran karo soddonkii sannadood ee ugu dambeeyayba waa la isweydiinayay waxaan filayaa waddankiina kan soddon sano ka hor mawduuca waxba egina ka hadlay welina waxqabadkeenu muu noqon mid wax badbaadiya inaynu tilmaamno si ballaadhan uga hadallo mashaakilku oo kaliya ayaynu inta badan ku gaabsannaa waxaan baa dhacay waxaan baa jira kan baa jira carruurtii kan baa ku dhacay cid waliba problem bay ka hadlaysaa laakiin cid xal haysa ma jiro mashaakilkii waa la wada akhrinayaa reeraha waa wada haystaan reerkaanu hadda haysan berritu ku dhacaya cid jawaab u haysaana ma jirto waxay ahayd inaynu dib isu weydiinno mawduucaadkeenna waxa aynu soo bandhigayno qaabka aynu wax u korinayno baa qaldan ilaan weli waxa jira waxay yidhaahdaan culamada tani quality control marka wax la samaynayo marka hore waa theory kadibna warshada soo saarta kadibna qolaa loo geeyaa productkii la soo saaray quality control ku samaysa eegta wuxuu wixii la filayay inuu yahay inagu muddaynu hadda wadanadan deganayn mala intii aynu garanaynay dee waa tijaabinay laakiin wixii soo baxay kumaynan qancin intii aynu garanaynayna waa tijaabinay wixii soo baxayna kumaynan qancin su-aashu markaa waxay tahay xalku muxuu yahay bergii la soo galay meelaha kan wixii la isu sheegi jiray haddaan imka dib idinku sheego na yeeli maysaan xalku waa inaa waddankiinni qabataan xalku
halkan waxba ku haysan kari weynay oo ku korin kari weynay deynaynu xal kale eegno mise waxaynu sugnaa qof waliba inta uu sii dhimanayo nafta ka sii baxayso inta dadkiisu sii lumayaan meeynu sugnaa mise haddaynan xal halkan ku haynin oo qaab aynu wuxuu toosino aynan garanaynin mala waxa habboon inaynu dib ugu dhacno secure nutshellki xaggeena waxaynu ku haysanay shabag culture iyo diin iyo dhaqan iyo wax isuwan oo qofka ku ilaalinaya at least أيها الأحبة بالبركة لان كو علم وحي إلى موقطون إن مال مران ما تشوغنو وحي نشوغنا مال دادلية هاي والدولة دا كردسيين أو سيستم كتشيران وحي نشوغنا مال وحواليبا أبن يهين وحواليبا قفك أيو فرن يهين xumahoo dhami bannaanka yaallo manaahijiya waxbarasho aan aragtidaad rumaysantay rumaysnayn ay ka socoto dunida social media aan hadda dawakhiyay oo sii tiro batay baatilka iyo waxa xun oo la qurxinayo ama ururaba leh waxaynu inagu xumo u haysanno ayaa dhulkaynu deganna ururo u doodo oo ilaalinaya leh su-aashu markaa waxay tahay saynu u badbaadi karnaa afar shay intaynu u kulansan yihiin waa adag tahay in la badbaado afartaas shay waa maxay horta ummad waliba dee mustaqbalka dadkeeda ay u takhatiidisaa waddanadaynu joognaaba dhibtu iyaba waa haystaan laakiin ugu yaraan dee wixii ay rumaysnaayeen way tijaabinayaan inay ummadooda u soo bandhigaan ummad waliba markaa da'deeda yar waxa ay raadacaynaysaa sida ay u fakarayso inuu mustaqbalkeedu noqon karo innaga haddaba intaa afar shay meesha yaalliin way adag tahay sida madaxeenna ka guuxaysa inaynu ku guulaysano afarta shay maxay yihiin waa kow ummiya diiniya umminimada soo ma taqaaniin literacy يعني illiterate inaynu diinteenaynu ka nahay aqoon darra inaga haysataa asaasiyaadkii diinta iyo furuudul caynkii iyo wixii qofka muslimka laga rabay inteena badani uma saxna kaasi waa qodobka labaadna waxa weeyaan usar mutafakkika baynu leenahay qoysas burburay oo inta ugu badan leh in badan oo ka mid ah qoysaskeena way burbureen ama qarkay u saarayeen inay burburaan ama odaygiina Afriku jira caruurtii iyo salaantiina halkay joogtaa waa la kala maqan yahay iyana waa mushkilad labaad oo mujtamaceena haysta mushkilad saddexaad baa jirta oo ah tarbiyadu iyo wax kobcintu waa fanni u baahan in la barto fannu tarbiya wal qiyada inaad qoys iyo caruur iyo dad hogaamisa hogaamintu iyo kobcinta iyo barbaarintu waa cilmi dunida la barto kaana ma rabna inaynu baranno at least dadku hadday dad aqoonyahana ahaan lahaayeen garan lahaayeen caruurta da kasta uu joogo sida loola dhaqmo da kasta siday u fakarto da kasta waxay u baahan tahay in lagala hadlo at least hadday aqoontaasi ay jiri lahayd dee waxbaynu tijaabin lahayd laakiin teenu waa maxay waa darawallo aan darawal ahayn adigu nin qiyaasun intuu meelaha gaadhiga sida loo kaxeeyo yara dhegedhegeeyey oo lagu yiri gaadhiga geerka la galiya dabeetana saliida la taabtaa caynkaas la yeelo waa la dhaqaajiyo wadooyinka saas loo mara kaasi darawal ma noqonaya waa maya iyadoo cid baratay barashadu waa laba mid bay ku timaadaa ama waxay ku timaadaa in aad dugsi iyo meel wax laga barto aad u gasho si fiican aad u baratid ama aqoon tajribo lagu keenay
aqoonta tajribada lagu keenay mesela markaad wadankaaga joogto ayeeyooyin baa jooga eedooyin baa jooga hooyooyin baa jooga awowyaal baa jooga adeer dad ugu yaraan kaa tajribo badan baa jooga oo wuxuun ku hagi kara halkan mostly kuwaasina ma jiraan aqoontii ahayd inaad soo baratana maad soo baranin marka waa umminima inaga haysata iyadana xagga kobcinta iyo hogaaminta midnaba aqoonteedii ma hayno saddexdaa qodob oo cillad innaga inaga jirtaaba waxaa raacay xaadina ijtimaaciya khatiira environment ama deegaan bulshada kugu xeeran oo wax kula korinayo khatartiisa qaba waa deegaan iskuulkiisii leh qaabkii iskuulka loo dhigayay leh jaarkiisii leh TV-giisii leh midiyihiisii leh qaanuunkiisii leh iclaamkiisii leh deegaan aan valueskaaga qiimo agtooda ka lahayn baad rabtaa inaad wax ku dhex kobciso adiga inaad diin ahaanna ummi baa tahay qoys ahaanna waad burbursan tahay fannigii tarbiyadana ma garanaysid si loo badbaadiyo hadhow baynu su-aal isweydiinaynaa carruurteenni way xumaatay see loo gala dee carruurteenna miyaa loo waxyoonaya dad qofka intaad badda dhex dhigto aad ku tidhaahdo waryaa badda gal laakiin ha qoyin suurtagal ma tahay qof intaad bad ku rido inaad tidhaha ha qoyin carruurtani waa bini aadam dadna way la nool yihiin adna wax maa tusin dhammaanteen wax sax maynan tusin ha qoyinna waynu ku leenahay iyagoo baddaa ku jiraynu leenahay ha qoyin ayuha alaxiba adduunka cid waliba ubadku waa waxa ugu qaalisanee bani aadam uu haysto nolosha bini aadamka ugu qaalisan dalal dhan baa dunida ka jira oo kule ma lihin resource laakiin dadka yagaanu maal gashanaa bay leeyihin jabaan wasiirkeedu intuu hadduu wuxuu leeyahy jabaan ma laha buu yidhi resource yacni waddanku ma laha wax soo saar ma laha waddankooda wax soo saarku yani mid natural mid ilaahay ku abuuray ma haysana bay leeyihin laakiin dadka yagaan wax baraa bay leeyihin dadkooda ay wax bareen waxay keentay dunida maanta u malayn maayo tuulo yaroo dunida ku taalla intaad istaagto wax jabaan samaysay in laga waayayo ama gaadhi ha noqdo ama falaas ha noqdo ama electronic ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdee maanta wax jabaan samaysay tuulo dunida ku taallo laga waayay inaanay jirin bay u badantay waayo waxay leeyihiin we invest waxaanu maal gashanay dadka iyagii bay leeyihiin dunidu markaa si ay dadkooda u maal gashadaan waxay isku dayaan inay alculuum alinsaaniya kullaha waxay ka hadashaa qofka bini aadamka iyo suluukiyaadkiisa iyo afcaashiisa si loo fahmo hadday sociology tahay hadday dhaqaale tahay hadday siyaasad tahay hadday waxbarasho tahay waxaasoo dhan waxaa lagu qaabeeyaa bulshadani siday u ekaan doonto iyo noocay noqonayso waxaasoo dhammi waxay ka waramaan ma huwa saalix lilinsaan maxaa bini aadamka u fiican educationally waxbarasho maxaa u fiican siyaasad maxaa u wanaagsan dhaqaale maxaa u fiican suluuk iyo dhaqan iyo sociology maxaa u fiican dowladaha iyo ummaduhu way daraaseeyaan si ay ubadkooda noocaa ugu soo bandhigaan inagu dowladna ma haysano gaaro wax inoo daraasaysa system gaaro aynu raacnaana ma jiro inagoo qaxoontiyo baynu dhul dhisan oo systemkiisa iyo wixiisa le u nimi waxaanaynu isweydiinaynaa saynu u badbaadnaa asalka bini aadamka waxa aynu bini aadamku quman yahay baa asalka ah ilaahay saas u abuuray bini aadam isagoo qalloocan dhashaa ma jiro walaqad khalaqna alinsaana في أحسن التقويم بإلهي وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى بني آدم كسقق منبور نشاه لكن ضدك كحيرا آباء يهويا يبرشد كحيرا يمشي وكنوا ليهيبا وحي كدن بيا قابيا نبينا عليه الصلاة والسلام وكحديث كورين يكت الماما يا مسلم كيالا
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم إلهي إنه يرى الضوء هيك وحنا بوري يقول دمان تود حنيفين حمها كوعدة لكن وإنهم أتتهم الشياطين ربنا لي الشيطان ماذا أوي ماذا فاجتالتهم عن دينهم شيطان كأوي ماذا هالأية وحرمت عليهم ما أحللت لهم الشياطين تاساكا ممنوعة وحيانو حلالي ووفرت إلى إله الشريك يالان إذن علمه عيب له إلهي بسانو أبوري أبوركي شنو سحيي لكن إنك قابك إنو كوريني أما ماشا إنو كوريني أما هلك إنو كوهينو أيا قابين إسا تاسا أما قابين إسا ودا قلدن إنو راعو أما قابين إسا ودا ونكسن إنو راعو هدي مستوى اللوب باهي إنو سو قاري لهي محابا نران لها halkii saaxiibkii iyo wadaadkii inuu mala gaari lahayn laakiin inagu taana ma gaarsiisnin nabigu wuxuu inooga warramay calayhi salaatu wasalaam wiil yar oo u dhaxeeya nin wadaada iyo nin saaxira waana ilmo yar ilmaha yar labada cilmiba waa la baraa boqorku wuxuu yidhi isoo bara cilmiga sixirka dabeetana cilmiga sixirka iyo bini aadamka saa loo qaldaa la baraa nin wadaadana wuu soo marayo wuxuu baraa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sidaa loo caabudo yacni ilmahani wuxuu helay laba cilmo at least balanced isu ah markay labada aqoomood balancedka noqdeen laba aqoomood oo isu dheelitiran markay noqdeen ilmuhu calaa fitratihi xagga xaqu raaca tii wadaadku raacay sida xadiidka ku qoray inagu tii kale iyadu way soconaysaa khubara dhigta laga bilaabo kindergartenkiina yar ilaa ya jaamacadda khubaro ku takhasustay ilmo yar si wax loogu dhigo iyo waxa ay rabaan si ay u fahamsiiyaan baynu u geynaa kuwaasi 8 saacadood bay hayaan adna waad marantahay oo markuu kuu yimaado wax kale aad u sheegaysaa ma jirto maxaad sugaysaa markaa waa inuu noqdaa ilmaha kani sida macquulka ahi sidii iyagu ay u tababareen waa inuu noqdaa haddaanu kaba sii hoos marin hadduu si saxa u guulaysto siday u tababareen waa inuu noqdaa laba mid uu markaa ilmuhu soo bixi inuu iyagu siday u arkayeen inuu guulaysanayo u guulaystay oo ah wiil yar oo faranjiyeed oo waxbartay ama gabadh yar oo waxbaratay jaamacada ka baxay shaqaysanaya laakiin alliya rasuultoona aan rumaysanayn ama diintu aanay qiimo badan u lahayn kaasi waa kii iyagu arkayeen inuu successful yahay kii guulaystay kii tooda ka dhacayna ee guulaysan kari waayeyna waa kan aynu leenahay musixaadka caqliga baa la geynaya ama daroogadu galaya ama kan buu galaya inagu midnaba waxuma hayno waxaynu u baahanay markaa wax la khasaaro bini aadan baa ugu weyn قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين إلهي وحين ليه كوة خساري والذين خسروا أنفسهم وأهليهم وكوة أهل كود ينفتود بوايه مال انت قيامه ألا ذلك هو الخسران المبين هدبا الرسول وحا الله صدر بيدا هذا وحا كمده أي علماء التلماما كو لعلهم يتقون وكجرته وحا كلو كمده لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إن الحجة دتك يكون أوغان dee haddii tale kale la garan waayo dee xujadu baanu idinku oogi xujo ku ogaasi muxuu yahay marka waa maxay baynu isweydiinaynaa waajib almuslim almuqtarib qofka muslimka ah ee galbeedka degan waajibka saarani muxuu yahay waajibka saarani waxaynu leenahay waa dhowr shay ugu horeyn ximaayatu nafsi naftiisa inuu ilaaliyo cadaab alla ka dhowro لبا وأهله وولده رير كيسية عرورتي سنين النار كإلاليو
ثم مجتمعي مسلم كائن إلاليه ثم الدعوة للآخرين كاسوا واجب كقف كستو مسلمة وقلبيتك جوغا صارا لكن سؤال سويدين تلي waxa weeyaan siday u suurtagelaysaa tani hadaba shantan waajiba aan tilmaamnay inuu yeelaa siday u suurtagelaysaa hal mid oo baan tilmaamay markaa dhalinyaradu maxay u lumaysaa ka hadli maayo mayay inoo saxayin ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa innaga wax dayacnay maxaa la inooga baahan inaynu qabanno waayo markaynu inagu shaqadeena qabanno ayaan ka warramaynaa dhalintu siday tahay haddaynan inagu shaqadii la inaga rabay qabanaynin dee waxaan dhalin uga hadlaa meesha ma taalo waxaan leenahay waa laba mid baad haysataa horta wixii u qaalisanaa ayaad haysataa waa qof bini aadama wax ka qaalisan aad haysataa ma jirto lacag baan ururinaya iyo waxaas oo iska hadaltiro lacagta isaga ku invest garee waxa u qaalisan aad haysataa waa qof bini aadama qofka inaad khasaarto iyo inaad ku guulaysato labada mid baad u taala mid waan rajaynaynaa inuu guulaysan karo ugu yaraan gaalnimo ka guulaysan karo waa hadduu dhulkiisii ku noqdiyo wadan muslim iyo meeshaasi uu ku koro taa marka ka warramay maaha tan Soomaalidu ay samaysaa in la wareeriyo oo ilmaha sanad baan tuulo la geeyo sanad baan magaalo la geeyo sanad baan meel loola guuro ilmo yaroo la dawaqiyay ما يوين ميلو لجيو دجنادو سبين آدم كأو كرة سبين آدم كأنه كرة إن تجري المال استبس دول ما كلا بعد أن تلمام يوحوين هذا تا يلي ويدان كو واحد صارن الشعور بالمسؤولية نحو الأبناء درين كائن الدرين تهرتين حلكو ساري تتكنا هذا الشيء إن حلكا ساري dareenkaasi qofku hadduu dareemo waxa aakhire ilaahay weydiin doono inay ku jiraan waxay keensanaysaa qofku inuu mutaabaceeyo oo warwaro ila darajati alqalaq wal khawf inuu warwaro war maxaa xaalkoodu noqon doonaa inuu in badan isweydiiyo waayo inaad xal hesho waxa ka horeeya inaad warwarto waxa kale uu dhib kugu hayo inaga dhibta goorma inuu hayaa markuu lumaabay inuu warwarka bilowdaa markuu baxsadaa baynu dhahnaa ilmihii baan lumay ilmihii baan la waayay ilmihii baa suuqa galay ilmihii aw hebel oo ilmihii baan markaas mar wax laga qaban kara maaha markuu wax qabad ka leeyahay bay tahay inaad warwarto ilmuhu marka uu wax qabad ka leeyahay ayay tahay in warwarkani ku hayo oo aad xal raadiso culamadii hore sheekh ka mid ah oo ragana cusurteennan iyo dhibtan ina haysataba aan ogeyn qarnigii 7aad ee miilaadiga meelahaasi noolaa ibnul qayyim ayaa waxa uu tilmaamayaa qaala bacdu ahlul cilmi bulay ahlul cilmiga qaar ka mid ah waxay yiraahdeen in allaha subhanahu yas'al alwalida an waladihi yawm alqiyamah ilaahay waalidka wuxuu weydiinayaa caruurtay dhaleen maalinta qiyaamaha inta aan caruurta la weydiinin waalidka inay u samafaleen iyo kale inaga inta badan caruurtu inay waalidka u samafashaaba inagu xidhan kana mala iska aamusan inaga inta badan waxayna saaran wuxuu yahay in ka fakarnaa waalidku inay aabaha iyo hooyada u samafalaan laakiin wuxuu leeyahay ibn al-qayyim culimadii hore bar kamid ah waxay oran jireen inta aan taa la weydiinin baa waalidka la weydiinaya idinku caruurta ma u samafasheen waayo caruurtu xaq bay leedahay oo wasayna al-insana biwalidayhi husnan wa haqqi aabaha لكن ينوحي إليه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وحيلين حقا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ورعرت إنها الدلنا هذا الدين لا نقول عين وادي شيء وما لا الدين كوايانات كينتو وادل نوعوية له عدي المهي سضيع عضي اسكسي ديسي غاية الإساءة حمقي ودبيو سمي بولي أكثر الأولاد نوحي يقول من بولي يا ابن القيم إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم
fasaadku wuxuu ka yimi aabbayaashu dayacay dayaceen ama waalidku dayaca uu dayacay ilmaha iyo inuu ihmaaliyey yacni aanu danaynin oo ay ka tageen inay diintooda iyo caqaa'idooda iyo waxa ku waajiba inay baraan. inagu waxaynu baro waxa u badan inagu waxaynu baro waxa u badan inaynu qur-aanka qaybsiino uu isku dayo qof waloo waalidaba intuu ilmaha kaxeeyo inuu xoogaa aayado qur-aana xifdiyo. aayadaha qur-aanka in la xifdiyaa inta salaada lagu tukadaa qofka ku waajiba, laakiin in diinta la baraa oo caqiidadiisa loo saxaa oo qof muslimo saxa laga dhigaabaa waajibka ah. macalinka qur-aanka wuxuun baynu weydiinaa imisuu qaybay iyo macalinkani carruurtayda qur-aanka ma qaybsiiyo. ayuha alaxiba, nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa kullukum raac wa kullukum mas'uulun can raciyatih. dhammaantiin waxbaa laydin raaciyey, dhammaantiinna mas-uul baa ka tihiin wixii laydin raaciyey. waxa uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in allaha saa'ilun kulla raacin cama starcaahu axafid am dayac. ilaahay aakhiro waa weydiinaya qof walba wixii uu raaciyey miyuu ilaaliyey mise wuu dayacay. xataa yus'ala arajulu ama xataa yas'ala arajula can ahli beyti. labada riwaayaba mala waa soo arooreen ilaa laga weydiiyo ama alla ka weydiiyo qofka reerkiisii iyo wuxuu kaga sugan yahay, inuu qaaday xilkii laga saaray iyo inaanu qaadin. xadiidkii saxiixu muslimna waxaa ka mid ahaa waina liwaladika calayka xaqa. ilmahaagu xuquuq buu kugu leeyahy. dareenkaasi daraaddeed ayuu nebi yacquub markay naftu ka baxaysay buu carruurtiisa isugu yeedhay. su-aal buu weydiinayaa ah aniga dabaday maxaa caabudi doontaan, maaha aniga dabaday maxay idin dhiqi doontaan iyo reerka saa odhan doontaan iyo halkaa ka bixi doontaan. wuxuu weydiinayaa diintoodu maxay noqon doontaa isaga dabadii. ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya wawasaa biha ibraahimu baniihi wayacquub yaa baniya ina allaha astafaa lakum addiin falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. ibraahim, nebi ibraahim carruurtiisii taas buu u dardaarmay, nebi yacquubna saas buu u dardaarmay oo ah in allaha astafaa lakum addiina falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. ilaahay diin buu idiin doortay ee ha geeriyoonina idinkoo aan muslim ahayn. markaasaa ilaahay leeyahay am kuntum shuhadaaa id xadara yacquuba almowt. mayaa joogteen baa ilaahay leeyahay markii yacquub geeridu ay ku soo xaadirtay ee uu carruurtiisa ku yidhi maa tacbuduuna min bacdi, aniga gadaashay maxay idin caabudi doontaan. qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima waismaaciila waisxaaqa ilaahan waaxida wanaxnu lahu muslimuun. waxay ugu jawaabeen inay towxiidkaa haysan doonaan. nusuustaan akhrinayo dham waxay tilmaamaysaa mas-uuliyaddaasi inuu waalidku aakhiro la weydiinaya u xambaaro. nebiguna wuxuu leeyahy kafaa bilmar'i ihma an yudayica man yaquut. waxaa qofka dembi ugu filan inuu dayaco cidduu quudinayay, cidduu hayay ee ahalkiisii iyo carruurtiisii inuu dayaco. diyaac wuu noqon karaa diyaac diiniya inay dayaceen, mid akhlaaqiya, mid tarbawiya. inagoo inta badan diyaaca waxaynu u naqaana ka maadigaahu. cunno marka carruurta la siin waaye baynu leenahay kaasi carruurtii iyo reerkiiba wuu dayacayo waxay cunaan muu siinin. dabcan dayacaday ka mid tahay, laakiin waxaa ka muhiimsan cunnada, diintiisa ka muhiimsan. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay khayrukum khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli. waxa idinku khayr badan ciddii reerkiisa ugu khayr badan, anigaana reerkayga ugu khayr badan buu nabigu leeyahay. khayriyada la sheegaya waa khayriya shaamila bay culimmadu yidhaahdaan. khayriya maadiya wa macnawiya labadaba way tahay oo ah
reerka iyo caruurta iyo dadkaba in iimaanka iyo akhlaaqdana laga dhiso cilmiga naaficana la baro ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيدة وقيد النبي عليه الصلاة والسلام وحوت المامية ما من مولود لله يولد على الفطرة مثل الله عليه مجره لو ميكروفون بس كاك شقيني يا شيخ waxa uu nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam ma jiro mid la dhalay ilaa iyo ala alfitra buu ku dhashaa dabeetana labadiisa waalid ayaa ma yahuudi ka dhiga ama nasraani ka dhiga ama majuusi ka dhiga tamanaheedu waxa weeyaan raadaynta u badan bay leeyihiin sadaradeed ay ibn al-qayyim mar labaad wuxuu leeyahay ma afsada al-abnaa mithla ghaflat al-aba ayuha al-ahibba keeba weyn inaynu ubadkeenna waxay cunaan waxay cabaan meel ay seexdaan waxay huwadaan u ilaalino iyo inaynu u ilaalino qofka diintiisa iyo dhaqankiisa iyo dadnimadiisa ma waxaynu caruurta wax u baraynaa shahaadaad waaweyn inay qaataan iyo waxaan inay sameeyaan aynu u samaynaynaa inay magac iyo maamuus helaan mise waxaynu rabnaa inaynu dadkan diintooda ilaalino guulkama dambaysaad guulaysatay qofkaad diintiisa ilaalisay qofka muslim saxiixa laga dhigay isaga ku filan cunadiisa inuu raadsado iyo waxbarashadiisa iyo qaabku u dhaqmayo waxa kale أيها الأحبة وانسوكوا بيا وحنا يقضب كواد وإن ندرين مسؤولية داسين آخر الليل ويدينيو كاسو قضب كواد قضب كاللبات وإن مراقبينو إلى لنو ورات راعنو عرورتينو حقيبي وحكالا كولانتا مسادر الطلقي قفك بني آدم كاهي cunada uu cunaa noocay tahay buu jirkiisu u koraa soo saamaha qofka bini aadamka hadduu cuno fiican cuno si fiican buu u koraya hadduu cuno nutritioniskeedu yar yahay cuno wuu korintaanka ka xumaanaya hadduu cuno poison cuno wuu xanuunsanaya taa waa isku wada raacsanay soo maaha maskaxduna waa la mid waxaynu daajinaa bay dhiiqaysaa hadhow si kale haddaan u tilmaamo ma jiraa qof wuxuu arkaba cunaa qofku hadduu kudaafada cuno maxaa soo baxaya waxaanuusanayaa baynu odhanaynaa dee bacteria cunay kambuu cunay qurun baad cuntay baa la odhanaya dabcan waxaanuusanayaa waxaa la mida qofku hadduu wax walba akhriyo siiba markuu dhalinyar yahay aanu korin korinta maxaan uga jeedaa markaanu garanin maxaa saxa maxaa qaldan qofku hadduu xadkaa soo gaadho waa suurtagal inuu garan karo waxaanu akhrinaya inuu xun yahay iyo inuu san yahay laakiin ilmo yar waan diintiisu kobcin waan maskaxdiisu kobcin waan si quman loo tareengarayn ayaa wax walba akhrinaya duniduna maanta dee kanaynu sidanaabay ku jirtaa everything kan buu ka dhexeli karaya marka qof wuxuu arkaba intuu cuno aad tidhaahdo war ha xanuunsan ninka war wuxuu arkaba qof cunaya oo haddana haddaad xanuunsan waxaa la mid ah qof wax walba akhrinaya wax walba daawanaya wax walba dhegaysanayo haddana la leeyahay xumaanin bini aadamku siduu u fakaraa waxay ku xidhan tahay waxa loo sheego maskaxdiisa wax xun oo tiro badan leh haddaad akhrido raad buu kugu leeyahay sidaa awgeed ayaa waxaa dhacda marar badan
maadaama aan laga warhaynin ilmuhu wuxuu akhrinayo wuxuu baranayo marar badan baa waxaa dhacda hooyo ordayso kule inantayda ama in ilmahaygii waxaan u malaynayaa in jimaniya wax ku dhaceen kaale sheekh ku akhri qur-aan inantaba sheekh jinna kuma dhicin wax kalena ma hayaane diintay ka baxday laakiin islaantani way garan kari la'day waa mulxidad yaroo meesha fadhida laakiin islaantu way fahmi kari la'day waxay isleedahay qofka waxba ka yara si noqday qur-aan ha lagu akhriyo kaale qur-aan ku akhri waayo ma oga wuxuu akhriyo ilmaheedu wuxuu ciddu wax ka dhigaysto wuxuu barto ma oga maantana xumaha waa la faafiyaa soo ilxaad inagu waxaynu naqaano uma foga ilaahay qofka uu dafiro ma wax ka dambeeyaa jira organizations bay leeyihiin youtubers bay leeyihiin lectures bay jeediyaan tv ka soo baxaan xataa waxay leeyihiin waxay ku tilmaamaan ardadan culumtu ku adkaato waxa jira buugaag la yiraahdo dumbooks waxa weeyaan waa buugaag la yiraahdo kutubil aqbiya dadka aan si fiican wax u fahmin buugaag lagu talagalay inay wax ku fahmaan xisaabaad soo helaysaa qabiga qof fahamsiin karaya science qof qabi xataa ilxaadku wuxuu leeyahay kutub maxaa la yiraahdaa dumbooks damiinada sidii ilxaadka loogu sheegi lahaa haddaan aad u caqli badnayn buu hore kuu fahmaynin sidii loo fahamsiin lahaa ilaah la'aanta idan waxaasaa yaalla agtiisa oo ka buuxa oo nadkiisa ku jira oo meel walba yaalla marka waxaan leenahay kow mas-uuliyadda waa inaad xambaartaa laba waa inaad og tahay ilmahaagu wuxuu akhristo la saaxiib ogow miyuulkiisii xaggu u janjeero buwaagtu akhristo cidduu ka helo ثالث الأمر وين أدعو كتوجيهسا مسادر التلقي الصحيحة مسادر تعقل جيسا لسه صحة وهو الرئيس كو الدين تيسا كتاب كإلهية عقائد يسير دي النبي يكوى كان قفك عقل جيسي أركتي دي سيد لسيا وهو أنفعية وين لبراه ويا النبي محمد عليه الصلاة والسلام حليه إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به وليس شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه شيء مجره نار شيء مجره جنة يدين دوين إلا يوان يدين فرق شيء مجره نار يدين دوين إلا وان يدين كريبا nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa waxaynu ku liibaani lahayn oo dhan inay diinta ku jiraan walidaalika muu maalin nabigu wuxuu arkay calayhi salaatu wasalaam cumar bin alkhataab oo sita waraaq oo akhrinaya waraaqdu waa kitaabkii towraadee hore dabeetana nabigu wuu cadhooday aad buu uga cadhooday cumar baa markaa bilaabay inuu yidhaha raditu billaahi rabba wabilislaami diina wabimuxamadin nabiya nabiga inuu dejiyo tilma ayuu tijaabiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi innahu wallahi low kaana muusa xayan bayna adhurikum maa xalla lahu ilaa an yatabicanii ilaahay baan ku dhaartay nebi muusihii lagu soo dejiyey waraaqdan aad sideetaa waa towraad baad leedahay nebi muusihii towraad lagu soo dejiyey hadduu nool yahay aniga inuu iraaco mooyaane cid kale uma banaanaateen buu nabigu leeyahy marka anigii baa jooga buu nabi maxamed leeyahy calayhi salaatu wasalaam maxaad waraaq towraada ka anfacaysaa anaa jooga muusihii ay ku soo degtay hadduu joogo nool yahayna uma banaanaateen inuu anigu iraaco mooyaane waxay culimmadu yidhaahdaan markaa waqti baa jira qofku aanay marnaba habboonayn shubahaadka iyo wixii la nooca inuu akhriyo qofku hadduu xad uu gaadho diintiisu ay dhammaystiranto waxyaabaha qaarkood wuu eegi karaa ama wuu akhriyi karaa ama waa baxfiyi karaa ama waa radin karaaba laakiin qofku oo aan dhisnaynba inuu ka bilaabo shubahaadka ilxaadka bal horta eegaya nimankan mulxidiinta kuwa yaryaroo meelaha qaylqayliyo ilaahay inbaaba markii dambe iyagii mulxidiin yaryar noqday waayo isagaabaan dhisnayn isagaabaan xoogganayn muxuu shubha radiyaa isagaa caga ku taagnayn waxaynu leenahay marka masaadiru talaqi saxiixa waa inaynu ilmaheena tusi karnaa waxa fiican in la akhriyi karo waxa fiican in la arki karo qodobka afraad aan tilmaamaya waxa weeyaan
awlawiyaadka waxay culimadu ku tilmaamaan see loogu kala horraysiinaya xujada markaynu rabno ilmaha inaynu ku ogno maxaynu u horraysiinaa innagu qur-aanka xifdigiisa aynu u horraysiinaa saxsa ilama aha ilmihii meesha muslimku degan yahay joogay ee aan mashkiladaba la kulmaynin ee aan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aakhiratoona laga shakisiinaynin hadduu qur-aan qaybo dee isagoo caqiidadiisa u haysto waxba kama xumaanaynin laakiin kanaad maalin walba 8 saacadood gaalka u dirto hadhowna aan cidi wax kale u sheegayna rabbinaas ba qaybtay iyo jasacma ma ka soo baxday uu la leeyahay wuxuu isku difaacaya awlawiyada waxaa leh waliba waalidkana aad ugu adkaynaya waayo macallimiinta waxa ku xisaabisan mise quraan u xifdiyay laakiin qofkani diin intuu hayaa kuma xisaabisaan waxa muhiimka ahi wuxuu yahay in ilmahan xujada lagu oogo xujo ku oogo waa maxay waa inuu diintiisa si dhaba loo baro caqiidadiisa si dhaba u barto arkaanul iimaanka 6 ah in si fiican loogu sharxo inta kadib markuu qaan gaadho hadduu isagu iswaalo isagay jirtaa adiga xilkaaga ka dhac laakiin haddaanad adigu uba bilaabin waad waxoogaa qur-aan u qaybsiisay waa dhib qur-aanka ha la qaybo ma diidanin laakiin waa inay ula socotaa ama ka horeysaa inuu dadku macnaha qur-aanka fahmi karo qur-aankani haddii la isu sharxi lahaa macnihiisa isagaa ku filaan lahaa caqiide iyo wax walba waayo dee nebi maxamed ba gaalada waxa la lahaa ku akhri qur-aankan buu ahaa iyagoo aan rumaysanayn baa la lahaa qul ku dhe sidaa iyo sidaa maxaa loogu odhanayay isaga adiladiisa wata qur-aanku adiladiisa caqliga iyo tii adiloo dham isagay ku jirtaa waana risaaladii nebiga waana mucjisadiisii isagaa qofka ugu filan qofkaad la rabto inuu islaamo kitaab qur-aan uu fahmi kara si waxay leenahay markaa qur-aanka akhriskiisa qura maahee fahamkiisa iyo caqaa'idda islaamiga ah inaynu u horraysiino dabeetana tahaaraadkii iyo wixii kale salaadii iyo wixii ka asaxayay aynu ugu daro waxaan kusoo koobaya markaa waajibka ku saaran waxa weeyaan iqaamatu lxujati calayhim carruurta inaynu xujada ku ogno qisa ilaahay qur-aanka inoogaga warramaya nin luqmaan ilxakiim la yidhaahdo ninkaa ilaahay wuxuu kaga warramayaa siduu ilmihiisii xujada ugu oogay waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yacidu يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لقمان الحكيم حكمة دي سين تنقول على ينوغا شيء آيات كاكو قرآن إلهي وحلي سبحانه وتعالى واحد حستار لقمان مركو ويليره سيكويري يا بني ويليره يو لا تشرك بالله إلهي عندنا كل ما نين وايو إن الشرك لظلم عظيم شرك هو ظلم وين عندي كو أبورتي كو أرزقدي كو حسيسي عدان هينا ثانكس كتلا عبادة هو ثانكس وهرين وإله هذا وتكون معتصنتي وكي النبي يقول أفلا أكون عبدا شكورا وكي عائشة تريد قمدا كبرتي ما تسكن ست دي لهي دم بقاقي وارنافي وميانا نهانين أدون مهدنا قبول النبي يقولها عليه الصلاة والسلام إلهي عدان هينا أدو شكر النقضوه والظلمي وهذا إلهي تيسا ضفرته marka luqmaan wuxuu ka bilaabay ilmihiisa tawxiidka dabeetana waxa laga warramay xaq waalidku leeyahay wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahna ala wahn wa fisaluhu fi 2 amayn an ashkur li wa liwalidayka ilayya al-masir kadiba waxa loogu xigsiiyay xisaab iyo aakhira inay dambayso qofku ilaahayna in lagu xidho loona sheego afcaashiisa oo dhan waxay doontaba ha noqotee inuu la kulmayo aakhiro يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير الإيمان بالله وباليوم الآخر ولا بدر ركن هو وين عقيدة الإيمان ذاتك الله شرحها كذب أي نبي أي لقمان الشاغي عباداتك يا أخلاقياتك مركي قضايا التوحيد حوق الله صاري كذب الله شرحي عباداتك يا محي يا أخلاقياتك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور واللي رهيق يوم صلاة دقوق سمهنا ضد كفر حمهنا كرين
markaad sidaa yeesho wixii dhib kaa soo gaadhana ku sabiro ku adkayso sabir baa meel lagu gaadhaya dadkana dhaqan fiican kula dhaqan walaa tusacir khadaka linnaas walaa tamshi fi lardi maraxa إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات إلا صوت الحمير أيها الأحبة هدي أن قضب كدري كرو وحن كدريا المهدين الرمنين وهجاجو انتو يري صاحب في عنان الضرن المهو حيلادان ضل يرد تينيجرز وسيبا 8 saacadood wax ku dhadhow bay maalintii hadlaan laakiin 8% bay qof weyn la hadlaan bay dhaahdaan inta kale yar kale la hadlayaan adiga inta kula hadlaan waa waxa ay siiyo waxgaas ba alaabti taala waxaad weydiisay laakiin cid ay u sheekeynayaan la hadlayaan waa cid kale oo dhalinyaradooda idan qofku qof wanaagsan inuu ku xidhmo waa waxyaabaha ilmaha toosiya qof xun hadduu ku xidhmana waa waxyaabaha lumiya sadaradeed buu nabigu wuxuu tilmaamay mathalu ljaliisi saalixi wasuu ka xaamili lmiski wa naafiqi lkir ninka qofka fiican la fadhiista iyo qofka xunka la fadhiista waa qof miski iyo cutuur haysta qof la fadhiistay iyo mid dab shidaya qof la fadhiistay xadiis kale waa kii nabigu tilmaamayay alrajulu calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil qofku diinta saaxiibkiibuu ku sugan yahay ee midkiin ha eego cidda uu saaxiib la noqonayo xadiid kale waa kii nabigu lahaa laa tusaaxib ilaa mu'mina mu'min mooyaane cid kale saaxiib ha la noqonin saaxiibkaa mu'min ha ahaado axaadiista aynu sheegnoo dhamme waa xujo gal insha allah waxaan xasan iyo saxiixayn mayna sheegin waa soo koobaya hadalka badani manfac badan ma leh carruurtu maxay u lumaysaa meeshan aynu joogno inay lumaan baa asala baan odhan karaa marka loo eego mujtamaca iyo qaabkaynu u noolahay maxay ka lumayaan waxay ka lumayaan valueskaada adigu sidaati saad nolosha u arkaysay ama si aad u qiimeynaysay seen u badbaadin karnaa ma fududa haddii se aynu isgargaarsanno ilaahayna tala saarno barinana caruurteenna invest garaynana investment idinku shirkadaha meelaha laga wadaaba investmentka ku darsataan waxoogaa lacaga hebel baa yimo shirkad wada inuu daarba halkaa laga dhisaya ayaa daar ka iibi waxba ilmaha daar iyo waxba toona uga tegi ilma diin loo dhaqan leh ka tag isaga daartiisa ku filan daartiisa iyo gurigiisa iyo wuxuu cunayo hadduu qofku ma noqdo isagaa isugu filan adba cidi daara kuma siinin qofku hadduu tooso ayaa wax walba ka qiimo badan taa maxaan uga dan leeyay lexjeclada iska daaya oo investgaraysta maalgashada caruurtiina maalgashigan ka raba waa maxay hadday iskuulta iskuul u fura hadday masaajidta masaajid u dhisa hadday madrasada madrasad u fura hadday macallin loo qabanayo tay macallin u qabta maalgeli haddaad dadaalkaa bixisaan waxuun way cayman doonaan haddii se aynu sidan iskaga wadno waxba yaynan isweydiinin caruurtii baa luntay see loo badbaadiyaa 30 sannadood baan lahayn war saasaa wax loo badbaadinaya saade sidiina socon weyday marka ama guryaheennii aan ku noqonno ama tala kale aan keenno sala allahu calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam